madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho kulan looga hadlayay wada shaqeynta warbaahinta iyo dawladda kula qaatay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada tan Muqdisho. Faahfaahin warka ku saabsan wariyahayaga Faysal Muuse ayaa noo diyaariyay. kulanka sanadlaha ee u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo warbaahinta Soomaalida waa uu qabsoomay. waxa uu ahaa kulan ka duwan kuwii hore wada hadal qaatay muddo 4 saacadood ka badan ayaa dhaxmaray labada dhinac waxaa joogay madaxda Nusaj waxaa la iska wareysanaya waxyaabaha iska bedelay wada shaqeynta dawladda iyo warbaahinta horumarka la sameeyay iyo in dawladdu ay ka jawaabto walaac dhinacyo kala duwan ay ka qabeen saxafiyiinta Soomaalida iyadoo ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee la xisaabtan la'aanta dambiyada ka dhanka ah saxafiyiinta dunida. kulanka waxa uu madaxweynuhu ugu yeeray wasiiradiisa warfaafinta amniga arrimaha gudaha iyo taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliya si ay u dhageystaan cabashooyinka ay qabaan warbaahinta oo arrimo amni u badnaa dawladda ama qolyaha nabadda diidan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeyn hadal u jeediyay qaybihii warbaahinta ee kulanka timid ayaa ku ammaanay doorka ay ka qaateen saxafiyiinta soo bandhigida horumarka dalka iyagoo ku shaqeeya xaalada adag. waxa uu madaxweynuhu sheegay in dawladdu aysan marnaba raalli ka ahayn tacdiidaha ku dhaca saxafiyiinta kuwa ay geystaan qolyaha nabadda diidan la qaaday tallaabooyin cadaalad lagu horkeenay. mar walba message-ka ama fariinta saxaafaddu ay bixinayso waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa inay noqoto mid positive ah. wax badan oo negative aan qabnaa xiiso badan uma qabno muxuu ahaay dhibka sheegistiisa iyo dhibka gaarista una gaar intaba dhib xiiso uma qabno waxaan xiiso u qabno waxay tahay waxa wanaagsan niyadda shacabka dhisayo dadaalka ku jira laakiin saxaafaddu guud ahaan runtii dadka Soomaalida fahamkooda soo kacaya qayb weyn waxa kula saxaafadda muuqaalka Soomaaliya ee dibadda maanta jiraahi waxa uu ku leedahay saxaafaddu qayb weyn ku leedahay saxaafadda Soomaaliya runtii tiir weyn way u tahay dadka Soomaalida aaday muxuu ahay waa saxaafaddu uguna xiran yihiin ugana shaqeeyaan runtii marka dhalinyaro aad iyo aad ayaan idinku hambaleynayaa duruufo badan xiriir badan inuu jiro laakiin dawladda federaalka intii horena way ka soo shaqeysay mustaqbalkan waa laga shaqeynayaa in la helo in la adkeeyo yani shuruucda difaacaysa saxaafadda. dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an in ay soo afjarto la xisaabtan la'aanta dambiyada ka dhanka ah saxafiyiinta laakiin dhankiina waajib ayay ku tahay in aad ummadda wacyigooda wax ka bedeshaan oo aad ku hogaamisaan in dalkooda ay dhistaan jeclaadaan nabadgelyada iyo bulshaduna ay ka shaqeeyaan sidii ay midnimo u gaari lahaayeen si ay dawladda Soomaaliyeed ugu fududaato shaqadeeda buu yiri madaxweynaha Soomaaliya. lan dadkii in la gaarsiiyo fariintii wanaagsaneed iyo wixii dhib jiro inta waa muhiim haddii markaa dadka aan la gaarsiin waa dadkii waa tan dhaamay saxaafaddu waa dhagihii indhiyo dadka laga xiray ayay la mid noqonaysaa qof aan dhaga lahayn indhana lahaynna fahamkiisa waa garan kartaa meesha uu gaari karo marka in saxaafadda la caburiyo in maxaan ku yiraahdaa dhib la gaarsiiyo in maxaan ku yiraahdaa tahdiid iyo cabsi ay ku noolaato runtii waa dhagaha iyo indhaha iyadoo dadka laga xiray la mid tahay marka laakiin iyaduna waxa waajib ku ah saxaafadda ama midaas moral responsibility mas'uuliyadda yani moralka ah iyo mas'uuliyadda ka saaran qawaaniinta iyo shuruucda lafsideeda ilaa mid saxaafadda u gaar iyo mid kale inta ka dhaxlaba ilaalinteeda dadka ugu horeeyo oo maxaan ku yiraahdaa mas'uuliyadda ay ka saarantay kamid yihiin inay ilaaliyaan. xubno u hadlay warbaahinta waxay muujiyeen in ay ka go'an tahay la shaqeynta dawladda si gaar ah amniga sidoo kale waxa ay madaxweynuhu u sheegeen in dawladdu ay ku taageerto sidii ay warbaahinta ugu tabin lahayd sida ugu habboon doorashooyinka ka dhacaya sanadkan dalka. aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa maadaama madaxweynuhu uu nala dardaarmay dardaarankiisa inaan soo dhaweyno waan qaadano sida ay tahay wariyaasha kale ee hadlayana in si mas'uuliyad ay ku jirtaan u hadalno sababtoo ah annaga waxaan nahay dad mas'uul waxaan ogtihiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis laga wariyo waxa jiray qofka muslimka al-muslim waxa la yiraahdaa man salima al-muslimuna min lisanihi carabkiisa la hormariyo ma la hormarin yadihi carabka daran wax kasta marka la soo hormariyo kaasa daran marka carabka dhibaatadiisa uu leeyahay markii laga hadlayo aayadaha quraanka oo aragteen oo in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu alayhi warkiisa iska soo waxyaabaha headline-ka mar walba mararka adduunyada laga hadlayo xeerarka saxaafadda iyo waxa la yiraahdaa sugnaanta warka aad muhiimad loo siiyaa waxaan uga mahad celinayaa sida quruxda badan ee noogu marti qaaday bal inaan isdhaafsano fikiro
qolo walbana ay soo bandhigto waxa ku jira gudaheeda madaxweynaha waxaan xasuusinayaa sidoo noo xasuusiyay marxaladihii kala duwanaa waddankeena uu soo maray oo hadba marxalad buu soo marayay wuxuu noo sheegay 2014 markii u dambeysay 3.5 in lagu qiyaasay heerka isbedel ee dhaqaalaha 2015 baa uga dambeeyay oo 4.5 oo hore u dhicin graafkaas iyo graafyo badan oo la mid ah inuu dalkeena maanta soo gaaro waxaan dhihi karaa rule ka mid ah rulka ugu waaweyn waa media wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda madaxa banaanba tababaro oo la xiriira qaabkii tabinta doorashooyinka ay u tabin lahaayeen inta doorashooyinka laga gaarayo in la siiyo maadaama bulshaweyn fara badan oo Soomaaliya meel kasta oo daafaha caalamka ka joogta ay ka war dhoorayaan xaaladda Soomaaliya iyo doorashadeeda sida ay noqon doonto dadku waxay noo maciibidayaan waa fursadaha kaliya hadda waddanka ka jira oo qofka codkiisa inuu baxsado horta bal wuxuu tabanayo sheego waxaan kaaga mahadcelinaa cashada waxaan kaaga mahadcelinaa oo kaleeto si guud anoo magaca wariyaasha ku hadlaayo doorkii ka dheeshay ama ka ciyaartay in saaxiibkeen la soo dabiibo black oo runtii nin ugu weyn ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu sheegay in ay gudbiyeen qorshaha warbaahinta ee doorashooyinka oo uu filayo sida uu sheegay in ay ku soo dhamaan doonto sida ugu wanaagsan doorashooyinka annagu waa gudbinay waa jooga agaasimihii TV-ga qaranka iyo agaasimihii Radio Muqdisho Al-Adaala ayaan u diray qorshana waa gudbin hatta waxaanu nidhi inta meelooda doorasho ka dhacayso hal la sameeyo mid walba press room ha laga sameeyo qarashkoodii waa gudbinay qorshihiisii waa gudbinay wariyaashiisa loo diiwaan geliyay waa gudbinay laakiin unfortunately dawladdu maadaama aanay bixinaynin fanka ku baxaya doorashooyinka waxaan dhihi karaa hay'adaha hayaa ma ogola inay dawladda la macaamilo sida dawladda la soo way dareemayaan markaas oo kale inay sharcigii bridge gareynayaan way dareemayaan laakiin haddana ma sameynayaan marka annagu mas'uuliyadeedii waa sameynay welina dabagal baanu ku haynaa waa isku daynay mas'uuliyadda inaan qaadano Yusuf Garaad Cumar oo ah safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay ahna qabiir saxaafadeed ayaa ku taliyay in saxaafaddu ay u shaqeyso sida dalkooda uu u eegyahay gabagabadii kulanka muhiimka ahaa waxaa lagu heshiiyay in si dhab ah loo wada shaqeeyo dalka Soomaaliya waa wadanka kaliya ee dawladdiisu ay cadaaladda hor keentay 4 kamid ah kuwii dilay saxafiyiin u adeegayay dalka iyo dadka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ballan qaaday in dhanka dawladda aysan xadgudub ka imaan doonin waxa uu warbaahintu ku dhiirigeliyay in danaha qaranka iyo dadkooduba ay ka hormariyaan mid gaarka ah Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho